soo dhawaada saaxiibayaal maanta halqadeena waxaan uga hadlaynaa dilkii madaxweynaha ayaa waxa la dilay isagoo gurigiisa jooga xilli habeenbar ah warbaahinta adduunka oo dhami waxay shalay ilaa daraad aad uga hadlaysay dilkii madaxweynaha wadanka Haiti kaasoo gurigiisa lagu dhex dilay marka yaa dilay madaxweynaha maxaa loo dilay arrimahaas oo dhan halqadeenan maanta ayaan ku faahfaahin doonaa. Haiti's president gunned down in his own home in the middle of the night by a mysterious team of assassins, we're told, who allegedly posed as DEA agents. قال رئيس وزراء هايتي كلود جوزيف أن مجهولين هاجموا مسكن رئيس البلاد خلال الليل وقتلوه بالرصاص. وأوضح جوزيف أن منفذي الاغتيال مجموعة مسلحة تضم عناصر أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية. intaan halqada toos u guda galin waxaan saaxiibayaal si xushmad iyo qadarin ku jirto in kaga codsanayaa inaad kanaalkayga like iyo subscribe ii saartaan. inta aynan dilka madaxweynaha toos u galin aan wax yar isla fiirino oo aan ka ogaano wadanka Haiti. wadanka Haiti wuxuu ka mid yahay wadamada la isku yiraahdo Caribbean countries-ka ama wadamada badda Caribbean-ka saaran. sanadkii 1492 ayaa badmareenkii reer Yurub Christopher Columbus wuxuu helay jasiirad aad u weyn oo ku taala mantiqada Caribbean-ka. isla markiiba jasiiradan waxa la hoosgeeyay taajkii ama boqortooyadii Spain. jasiiradan waxa loo bixiyay jasiiradii Spain ilaa iyo sanadkii 1625 jasiiradani waxay hoos tagi jirtay boqortooyadii Spain. laakiin sanadkii 1626 Faransiiska ayaa bilaabay inuu aad isugu soo fidiyo jasiiradan ilaa xaaladu gaartay in Faransiiska iyo Spain ay heshiis gaaraan sanadkii 1697 kaas oo sheegaya in ay jasiiradan kala qaybsadaan. Faransiisku qaybtiisii wuxuu la baxay Saint-Domingue wuxuuna keenay jasiiradii dad fara badan oo Afrikaan ah ilaa ay gaareen markii dambe nus milyan. waxay uga shaqayn jireen beeraha bunka iyo qudaarta. jasiiradan waxay u noqotay Faransiiskii mid ka mid ah goobihii ugu muhiimsanaa ee uu gumaysanayay. Haiti waxaa lagu tiriyay in ay tahay jasiiradii ugu horeysay adduunka oo madow ah iyo sidoo kale in ay tahay wadankii labaad ee ugu horeeyay ee ku yaala galbeedka adduunka kaasoo xorriyadiisa qaata. Haiti waxay xorriyadeeda qaadatay sanadkii 1804 kadib markii Afrikaankii beeraha uga shaqayn jiray gumaystihii Faransiiska ay kala hor yimaadeen halgan adag oo ay xorriyadooda ku doonayeen ilaa ay markii dambe ka hoos baxeen heeryadii gumaysiga. laakiin nasiib darro wadankii wuxuu gacanta u galay madax kale taliyaal ah oo shacabka aan wax weyn u qaban. waayaha aan dib ugu noqono xalqadeenan. ra'iisul wasaaraha wadanka Haiti ayaa wuxuu sheegay maalinnimadii Arbacadii hadda dhaaftay in habeenbarkii maalinkaas gurigiisa lagu dhex dilay madaxweynihii wadankaas. ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu sheegay inay madaxweynaha dileen kooxaha dadka laaya ee shirqoolada sameeya kuwaas oo aad xirfadooda u sareysay. wuxuuna sheegay ra'iisul wasaaruhu in kooxdii dilka fulisay ay ku hadlayeen luuqadaha Ingiriiska iyo Isbaanishka labada luuqadood oo aan looga hadlin wadanka Haiti. dadka Haiti waxay ku hadlaan luuqad maxalli ah iyo luuqadda Faransiiska oo luuqadda Isbaanishka iyo luuqadda Ingiriiska ma ahan luuqadahooda kawaad. ra'iisul wasaaruhu wuxuu hadalkiisa ku daray in booliiska iyo militarigu ay ilaalin doonaan nidaamka wadankaas shacabkuna ay isdejiyaan oo aysan waxba walwalin. dhanka kale safiirka Haiti u fadhiya Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in kooxdii dishay madaxweynaha ay ahaayeen murtasiqo muxtarifiin ah ama calooshood u shaqaystayaal aad u xirfad badan. wuxuu sheegay in kooxdii madaxweynaha dishay ay soo xirteen oo ay gashanaayeen tuutaha ciidamada Mareykanka. waxaa laga yaabaa buu yiri inay isla markiiba ka baxeen wadanka markii ay dilka madaxweynaha fuliyeen. weerarkan lagu dilay madaxweynaha ma ahayn weerar iska caadi ah ee wuxuu ahaa howlgal shirqool oo aad u abaabulan ayna fulisay koox aad u tababaran. dabcan madaxweyne wadan intii qasrigiisa madaxtooyada la iska soo galo si fudud laguma dili karo ee shirqool aad u khatar badan ayaa meesha ka dhacay. xaaska madaxweynihii la dilay ayaa dhaawac culus soo gaaray waxaana loola cararay isla markiiba magaalada Miami ee wadanka Mareykanka si halkaas loogu soo daaweeyo.
isla markiiba dilkii madaxweynaha Haiti waxaa soo cambaareeyay Mareykanka, Ingiriiska, Golaha Ammaanka iyo wadamo kaleba. sidee ayay ahayd xaaladda guud ee Haiti ka hor shirqoolka madaxweynaha? madaxweynahan la dilay ayaa xilkiisu wuxuu dhammaaday 5 bilood ka hor, wuxuuna rabay inuu ku darsado 1 sano oo dheeriya intuu xilka hayay laga soo bilaabo sanadkii 2017. waxaa shacabkiisu ku dhaliili jireen oo ku eedeyn jireen musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ba'an. banaanbaxyo aad u waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyin badan oo wadankaas ka mid ah bilowgii sanadkan, kuwaas oo lagu dalbanayay inuu iscasilo madaxweynihii la dilay. wadanka Haiti ayaa waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah wadamada ugu faqiirsan qaaradda Amerika. wadankan ayaa xaalad jiha wareer isaga jiray waayadan dambe oo dhan. xukuumadda wadankaas ayaa waa dhaweeto waxay tiri mar oo ay sheegtay in nolosha madaxweynaha ay khatar weyn ku jirto. sidoo kale waxay sheegeen in ay fashiliyeen isku day afgambi oo la rabay in madaxweynihii dhintay meesha looga tuuro. dhanka kale, warar soo cusboonaaday waxay sheegayaan in 4 ka mid ah kooxdii madaxweynaha dishay iyagana la dilay, 2 kalena la xiray. inta badan falalka shirqoolada ah ee dunida daafaheeda ka dhaca waxaa lagu yaqaanaa in dadka falka geysta ee wax dila iyagana isla markiiba la dilo si aan xogba loo helin, looguna jahwareero meeshii iyo ciddii baaritaanka laga bilaabi lahaa. taas beddelkeeda, booliiska Haiti waxay leeyihiin 2 ka mid ah kooxdii madaxweynaha dishay ayaan haynaa oo nolol ayaan ku haynaa, bal aan ka warsugno maalmaha soo socda iyo halka ay ku dambeeyaan labada maxbuus. wadanka Haiti ayaa adduunyadu waxay aad ugu xasuusataa dhulgariirkii argagaxa lahaa ee wadankaas ka dhacay sanadkii 2010. waa dhulgariirkii muddo 1 daqiiqo oo kaliya ah ku ruxay wadankaas oo dhan. dhulgariirkaas ayaa wadankan wuxuu u geystay khasaare aad u weyn. waxaa ku dhintay dad ka badan 225,000 oo qof, waxaana ku dumay qaybo badan oo ka mid ahaa dhismayaashii waaweynaa ee wadankaas, haddii ay ahaan lahayd madaxtooyadii wadankaas, xaruntii baarlamaanka, isbitaallo, xabsiyo iyo meelo kale oo badan. dhanka kale, wadanka Haiti waxaa dhibaato weyn ku haya shirkadaha waaweyn oo qandaraasyo amni ama gargaar bini'aadanimo ka soo qaata wadamadooda ama qaramada midoobay, kuwaas oo lacagihii qandaraaska aan waxba ugu qaban shacabka. shirkadahan waaweyn ayaa waxay wada shaqaystaan siyaasiyiinta iyo hantilayaasha wadankaas, oo qandaraasyadu ayaga ayay afka ugu dhacaan oo shacabka waxba ma gaaraan. balaayiin dollar oo kaalmo ah ayaa wadankaas ku baxda, laakiin in yar oo kooban ayaa shacabka gaarta. inta kalena waxaa afka u dhigta shirkadahan qandaraasleyda ah iyo mas'uuliyiinta wadankaas. mar labaad iyo mar saddexaad ayaan saaxiibayaal waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in aad like iyo subscribe ay saartaan kanaalkayga. sidoo kale waxaa jira page aan Facebook ku leenahay oo isla magaca kanaalka waa Yamyam Balase wata, aan si maalinle ah ugu soo gudbino dhacdooyinka yaab kale ee dunida daafaheeda ay saxaafadda adduunku ka qorto. waad mahadsantihiin, guuleysta. nooli kulantee waa noo xalqad kale oo xiiso leh.